isbedelada ka dhacay deegaanka Soomaalida oo lagu jiro labadii usbuuc ee ugu horeeyay hadda waxaan ku suganahay magaalada Jigjiga oo marka aad dhaxmarto dadka ku arkaysa ay kamid yihiin dadka ka soo baxay jeelasha telefishinka Home Cable waxa uu suura gashay inuu la kulmo qaar kamid ah aqoon-yahanada ka soo baxay xabsiyada ee haatan leedha ku qaadanaya iyo xorriyadda magaalada Jigjiga waxayna la wadaagi doonaan qaar kamid ah ama waxyaabo kamid ah tacadiyada ay kula kulmeen jeel ogaadeen oo ah jeelka dhexe ee magaalada Jigjiga halkan ayay ugu la sugan yihiin waxaana ka bilaabi doonaa koonaha أنا مقعي وحالة دها عبد الخضر عبد الله عبدي إلهي بما هذا لماتي إن معناها أن لنا خوك قاضنا يو أنا جو مدة أفر سنة أكون حنا حبسي كشيلو قاعدين دبعتوين فرق بدن اللي يوسف مريي دبعتوين كل يوسف مريي عدان قار كم ذا عن شيء أو حاكم ذا وحبي أو درة إن قلير أو سولية أو هوسي سولية هاي استاجنا هذا استاجي كرين تاجني فدينا أنشرين يا الله قلت تاجنا نسين معناها أن كشري مدة أفر بلاد أنا شخصيا كليه المدة أنا قرحة أنا نرج سو كلا حلقة مدة إياها وح بيو نظيفة ما نعبي جرين وحن عبي جرين مدة اللي بلودها بيها قدبك بيها قدبك لها وآد وسخسن رناهانتي مدة أو آد أفكر نودل دلاعي باتفر بدن إن سو قادي حل سببي حرق جهره حرق جهره وحل سببي اللي يقولوا حتى يرتدت كي يثبت دونك أها أوكي إن هران قص عنا يا لما أنا قوي هذا ماشي يقول سكون ولا رضا مقعد بلعبية magacaygu waa engineer maxamed mukhtaar intaan meesha ku jirnay waxyaabo badan oo dhibaatooyin badan wayna soo mareen maanta alxamdulillah hawadan ka cabina magaalada Jigjiga dhibaatooyinka waxyaabahan ka xasuusto haddii aan idin sheego ama waxyaabaha aan aad iloobin waxa weeyaan anagoo muddo 15 maalmood taagnayn oo fadhi iyo chiefna loo diiday taagni kaliya ah cagaha ayna barareen in ay niman mas'uuliyiin noo yimaadeen oo halkaan ugu jeesjeesan oo dhahaan oo nimankii wali way taagan yihiin idinkaaba ka shaqaystay maxaa loo jajifin waayay wax jiifa maana arkaba dhibaatooyin badan aad wayna soo mareen oo meesha inta aan ku jirnay hadda isbedel ayaa yimiday isbedelkaas waxaan leenahay wixii hore wax ka qaado dibna ina u dhicin arrimihii hore u dhici jiray cadaaladda iyo sinaantana laga shaqeeyaan leenahay waxa kale oo cadaalad darrada meelaha aan anigu aad ku yaabay aan ka mid ka ahayd in adiga oo xabsiga lagu wado in lagu marmo oo madaxdii ay ku maranto waxa inta sanad ugu xidhi lahaa 15 sano oga dhig 2 sano oga dhig 9 sano oga dhig war 20 sano oga dhig aakhiran kugu shubaynaa ereyada iga soo hadhay waxa weeyaan iga soo hadhay aakhiran kugu shubaynaa iyo ma isa saxdid iyo waxba nabadda marin kartid iyo wax luqad gaar ah oo meesha ka jirta oo anigu mantaqantay aan aad mantaqantay uga tacajibay waxa kale in isfeerar la dhaho anaga dhaxdanadii oo ilkaas ka daadino oo mantaqantay ruuxi wax feeri waayo qomaati wax feeri waayo asagana balaq lagaga sii dhoo dadka madluumaadka u daaysid oo aan la suturi karin oo anaga dhaxdana la isku fakaar fasaxo dhibaatooyinkan soo arkay waxa kamid ah hadda xabsiga anigu hadda masaajid laga dhigaa leeyri waxaan aaminsanahay guriyaha ku yaala waxay dhan 100 guri masaajid hadda laga dhigay xitaa uu yeelan kara inuu guriyahan isticmaalo oo guriyahan mantaqantay laga faa'iideysto sababta loo leeyahay in la dumiyo laftirkeeda waxaan u arkaa dad badan oo ku duugan inay jiraan xabsiga dhexdiisa oo saxbaal ka jira xabsiga saa darteed in la baaro iyo xabsiga u baahan yahay meesha uu ku yaalo meesha laga duminayo waxaan halkan ku soo koobi karaa ma wixii jeelka ka dhacay isbedelkii aan u xiranay inuu ka dhaco deegaanka alxamdulillah maanta waa u dhacay halkan aan taaganahay nacaawdan iyo banaan joog iyo xornimadu macaanka ilaa anaga maanta garanayno waxa batalan waxyaabaha tacadiga ugu badan ee deegaanka ka dhac waxa kamid ah ruux dhibana oo lagu xukumay sanad oo gadaal qalin laga darayo sanad baa 2 sano la xukumi eber baa lagu dar 20 sano ka dhiganta sanad baa la xukumi eber baa lagu dar 10 sano ka dhiganta marka ayaa bedelay qalinka ku daray waxa bedelay waa booliska loo geeyay warqadaas ee jeelka geynay marka madaxweynaha waxaan leeyahay cadaaladda noocaas oo uu basically waa in reforms lagu sameeyo judiciary justice systemka deegaanka ka jira awalan waa in lagu sameeyo saasan qabaa waxaana loo geystay jirdil maskaxeed ya waxaan soo koobi kara ma marka ugu horeysay meesha lagu geliyo budka kugu bilowda iyo caqabada kugu bilaabata iyo biyaha kugu bilowda iyo bacda kugu bilaabata ayaan 4 sano u dambeeyay marka laga reebo intii ugu dambeysay commissionka cusub hadda la keenay ayaan ku soo jirnay qabowgii la soo dhaafay hadda hidhaar maskaram ilaa hidhaar qol cidla ah oo sideedaad ah ayaan jiifo biyo liigu shubayay waan adkaysanaynay we knew waxaan ogeyn one day in isbedel uu imaanayo inaan ka daba tagna halkan uma soo taagnin laakiin dhibaatadii dadka gaadhay
annagu waan noolnahay dad badan baa waxa weeye dadkay jeclaayeen la'aa habeenna annagoona nabad ku seexanin baan garanayaa 3 sano u dambeysay bacaa madaxa la isku gelinayay dad aanan technically garanaynin tortureka ayaa kula soo bixi fuustooyin biyaha lagu dhaamini ninkaygan inta leeg ba inta la qabto la fuuriyo madaxa loo gelini they don't know how seconds iyo minutes aan anigu ma neefan qaba garan mayaan 2 times baan kooma galay liimada weynin sankii afkan dhig ka keenay ragana hawanu adkaysanayay ya hooya ay dhashay waxay ku sugnayd ilaahay baa ogaa caafimaad darrada la soo jeed ilaahay wuu dhintay baa liilmana la arkaynin tacsiba la idhiga aniga waxa soo dhan waan ka soo gudubnay waxaanan waligay ilaa weynin gabaraanan magacayga garanaynin magaceeda aan garanaynin oo meel lagu ciqaabayay meel ku dhow ka qeeliisay walahi walaalo lambar 8 waxa la yiraahdaa la isku xiraa labadaada suxul baa la isku keenayaa xabadkaas lagu istaajinayaa sida aniga la iigalaya gabadha loo galay alla walaalo naasaha iga qaad sibirka ilahayd sibir qabood 7 saac habeenimo ahayd gabadha magaceeda ma garanayo laakiin marnama ilaahu aad iyo aad Daawo mahadsan yihiin waxa Ismaaciil Buurgaabo uu ugu dambeeyay aqoonyahankaasi kala duwan ee aad soo dhageysateen arrimaha ay ka warrameen ee ay ku dheeraadeen tacadiyadii xuquuqda aadamaha baalmarsanaa ee ay kala kulmeen xabsiga jeel ogaadeen hase yeeshee fariimahooda ugu dambeeyay marka loo fiirsado ay ka muuqanayso inay cafis gudahooda ah ay dareensan yihiin isla markaasina isbedelka cusubna ay raalli ku yihiin taasoo keeni karta inay ilaawaan waxyaabihii soo maray waxaana ay fariin isku mid u direen shacabka waa Cabdishakuur Day Maxamed telefishinka Home Cable magaalada